هذا كو عفلس شوف الله dagaal beeleed maxaabiis lagu kala qabsaday hub lagu kala furtay rasaasta teeda culusna ilaa iyo hadda ay socoto ayaa ka socda laba beeloodna ku dhaxmaraya deegaano hoostaga gobolka Gedo ee Jubbaland Cumar Guuxayaan nahay hadii uu muuqaalkii soo gaaro si shirkado saxibadana la sii wadaaga wararkii ugu dambeeyay dagaalkan ayaan halkan ku eegi doonaa wararka ka imaanaya degmada Luuq ee gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku soo waramaya in halkaas laba beelood oo wada deegaankaasi dagaal xoogan uu ku dhaxmarayo sidoo kalena isku adeegsanayaan hub culus oo dhinacyadaasi ay kala haystaan wararka waxa ay sheegayaan in subaxnimadii hore ee saaka uu dagaalka soo bilowday inta aanan la gelin salaada subax waliba 4 subaxnimo amaba 10 saac oo buura ah waana xilliga dadku ay salaadu aadaane waxa la sheegay in dadka ay ku waabrisay misna ku soo tooseen daryanka hubka culus ee ay adeegsanayaan dhinacyadan ee ku sugan gobolkaasi Gedo si gaar ah degmadaasi Luuq hub culus oo dagaalka la isku adeegsaday ayaana dadka deegaanku ay sheegeen inay sabab u noqotay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dadka deegaanka soo kala gaaray iyadoo xaalka hadda uu yahay mid aad u kacsan rasaas goosgoos ana la maqlayo maadaama uu dagaalku istaagay waxaase mar walba la filan karaa in mar kale dib ay isugu soo laabtaan beelaha halkaas isku hor fadhiya wararku ay helino ayaa sheegaya in dhinacyada ay ka geeriyoodeen 3 ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah khasaare kale oo dhaawacna uu jiro kuwaasi oo loo kala qaaday xarumaha caafimaad ee ku yaala gudaha degmadaasi Luuq ee gobolka Gedo ilaa hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dhinacyada dagaalamaya oo khasaaraha ay ku kala sheegayaan dadka deegaanka waxa ay sheegayaan in xaaladdu hadda ay tahay mid qasan marka loo fiiriyo daryanka hubkii cuslaa ee saaka ay ku waabristeen ilaa iyo hadda rasaasta socotana la filan karo khasaare baaxad leh oo dhinacyada kala gaara dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo hadda tiro rasmi ah oo go'an lama xaqiijin laakiin maadaama uu dagaalku ahaa mid xilli habeen dhacay ilaa iyo saacadana socdo lama xaqiijin karo lamana ogaan karo dhinacyada dagaalamayna wax telefoon ka jawaabaya ma jiro si khasaaraha kala gaaray loo ogaado Jubbaland gaar ahaan degmadan Luuq ee gobolkaasi Gedo maalmihii la soo dhaafay ay xiisadan ka taagneyd waana maalintii saddexaad marka loo fiiriyo dagaalka iyadoo dadka deegaanka qayb kamid ah ay ka baxeen degmadaasi halka kuwa kalena ay ku sugan yihiin oo guryahooda ay ku xiran yihiin saaka ma jiro wax ganacsi ah ama dhaqdhaqaaq dadka deegaanka ay wadaan ama ay sameeyeen iyadoo oo waliba nolol maalmeedka halkaasi maanta uu yahay mid aanan sidii hore u socon oo qof walba uu gurigiisa ku xiran yahay wadooyinka waaweyn ee magaaladan waxa lagu arkayaa ciidamo gaafureegaya oo dhinacyadaasi ka soo kala jeeda oo waliba sheegaya in cidna aysan soo bixi karin ilaa iyo dagaalka uu ka dhamaado waa sida aynu xoguhu ku helaynay dadka deegaanka qayb kamid ah oo aynu la xiriirnay ayaa xaqiijinaya in haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto dadku ay halis ugu jiraan in halkaas ay ku wajahaan dhibaatooyin ay ugu horeyso inaysan helin wax raashin ah oo suuqyadii magaalada ay xiran yihiin ganacsiyadii sidaas oo kale kuwii waaweynaa ee dukaamada iyo kuwii yaryaraa intaba dhammaantood albaabada loo laabay